لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مدحوين كحجينك حبناها قولها وزير رذا قدوميها حزب قوعد مايرك كحجين كيسة مرتدى شرفت يا مدح ذكراء كدقين بوان السلام يا مدريان يا مروين با السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا قوم الصوت عيننا كشيك هيو تاريخ ذلير يا علاقات كوناكسنة كدحية لبضوا مضوا السعودية السومالي لان تاين تكلاش شيكين هم نصوكعون إن أرهن مهدنق يهمبليو وحين يسووني معاوة إن نحسن لبا مناسبات وهذه القالية مناسبة مالين تقرن كسعودية مناسبة كلنا وحوي وسويماتنك شارية السعوديين تأرير سوماليلاند أنا أقول هذا يا مجا وزارة يا مجا تأرير سوماليلاند با وحنشغلها هاي إن هل كانوا يسووا بدبيو حنبليو يوم مهدنا بقرك السعودية بقر سلمان يولي عهد جيس محمد بن سلمان iyo dadka reer Saudi Arabia oo dhan meel ay joogaan baba waxaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka baryaynaa inuu barakeeyo wadanka barakeysan oo xafido ilaaliyo bidnillaahi kariim wadankaasi waxa weeye wadanka Sacuudigu waa wadanka kaliya ee caalamka ee qof wal oo muslima oo kari karayaaba uu waajib ay ku tahay inuu soo ziyaarto waxaan ka marxaati kacayaa in boqortooyada Sacuudigu ay aad iyo aad isaga xil saartay sidii ay ugu sahli lahayd dadka xujaajta ah inay gutaan waajibaadkooda anigu laba jeer baan xajka tagay marna 2005 marna 2017 waxa u dhaxeeyay runtii farq aad iyo aad u weyn waxa gidigeen baan runtii inuu waajiba inaynu xusno oo u mahadnaqno dadaalka mataqaana maxay raadayeen aad iyo aad ka weyn ee boqortooyada Sacuudigu ay ka gashay sidii ay u ballaarin lahayd xajka una sahli lahayd una fududeyn lahayd dadka xujaajta si ay gudan lahaayeen waajibaadkooda waxaan kaloo doonayaa inaan uga mahad celiyo boqorka iyo wali cahdigaba sidii wanaagsaneyd ee diiranayd ee milgada lahayd ay u soo dhaweeyeen madaxweyne ku-xigeenka iyo waftigiisa markii xajka soo gudanayay dhawaan waxaan kaloo doonayaa halkan ku hambaliyeeyo jaaliyadda oo markii ugu horeysay munaasabadan oo kale isugu timi waxaan filayaa inay noqoto bilow jaaliyaddu markii horeba waxay ahaayeen safiirro bay ahaayeen qaaliya iminkana munaasabadan wixii ka dambeeyay ee jaaliyad samaynta waxay noqon doontaa waan filayaa mid sii xoojisa safiirnimadooda iyo adkeynta cilaaqaadka ka dhaxeeya labada dal ee walaalaha waxaan ku dambaysiinayaa in jaaliyadda waa loo baahan yahay laakiin isla markaana loo baahan yahay qunsuliyad Sacuudigu halkan inuu ka sameeyo safaarad si ay ugu adeegto jaaliyadda ballaaran ee Somaliland Sacuudiyiinta ee halkan jooga iyo xujaajtaba sidoo xildhibaanku sheegay xujaajta ka tagta Somaliland dhibaato badan ayaa la kulanta oo ka haysata waxaan rajaynaynaa oo ka baryaynaa boqorka iyo wali cahdigiisaba inuu u fududeeyaan dadka xujaajta reer Somaliland si ay u soo gudan lahaayeen waajibaadkooda aad iyo aad baa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum wa rahmatullahi